haddii mulacyadii iyo maxaa la yidhahdaa caashabaridii iyo subxaayadii la guranayo war maxay noqonaynaa halkan waxaan ku haynaa geedka loo yaqaan bahalaha yaryar oo loo yaqaan oo ilaahay deegaanka oo ku qurxiyo ku beeray caashabarida loo yaqaano xalay xilligii dambe ayaa la qabtay nin wuxuu sitaa 2 jawaan oo waaweyn laakiin dhacdooyinku adduunka markaa joogto maalin walba waxbaa soo kordhaya oo adiga kugu cusub arkayso hadda waxaa laga hadlayay bacda iyo dhuxusha iyo deegaanka bahalkiisa waa dhaweyd ugaarta laga hadlayay geed buuxa ku jiray maanta intiiba wax ka bedelan baan haynaa waxa ugu horeeya oo aan haynaa waxa weeye haddii mulacyadii iyo maxaa la yidhahdaa caashabaridii iyo subxaayadii la guranayo war maxay noqonaynaa halkan waxaan ku haynaa geedka loo yaqaan bahalaha yaryar oo loo yaqaan oo ilaahay deegaanka oo ku qurxiyo ku beeray caashabarida loo yaqaano xalay xilligii dambe ayaa la qabtay nin wuxuu sitaa 2 jawaan oo waaweyn oo caashabari ay ka buuxdo gaari buu ku wataa markii hore sidii loo baarayay ayaa la arkay waxa kan bahali baa soo baxay wixii baa la fiirshay waxa leeyahay war waxaan gooyay wixii baa lagu sidaa degay mise bahalahaas ka buuxdo war waxaan xaga wada ma hadda waa wata kana wada markii hore wuxuu yiri ma wato uu yiri balaa wata kana ma wada aduu gaarigii iyo wixii iyo nimankii waa la soo xiray baaritaanka dheer saaka ilaa gariga hore waa lagu jiray qofkii wata qiraaq ku noqday waa la hayaa waxa ka sii daran qof kale oo sheegay oo adnabi ah oo magaalada joogay oo alaabtan loo waday markuu ogaaday ugu horeeyay in la qabtay ayuu gaari qabsaday waa iskaga baxay gobolka taliska booliiska iyo anagu ilaa saaka waxaan ka shaqeynayna qofka meeshuu maray meeshuu aaday alxamdulillah haddeer markuu madaarka galay boosaaso baa gacanta lagu dhigay waa la hayaa insha allah booliiska gacanta ku haya waa laga soo waxaa la keeni doonaa Garowe kiiskiisana waa lagu qaadi doonaa inta uu ka yeelan doono waxaan leeyahay bulshadu waxaan la rabaa arrintan iyo waxa la midkaaba inay diyaar u noqdaan oo ilaaliyaan oo la socdaan oo booliiska la soo wadaagaan diyaarana waxaan nahay habeen iyo maalinba inaan qabanayno wixii dalka dib ku haya oo dalkeena nabad guurinaya laakiin haddana wasaaradda deegaanka iyo booliiska kaliya kuma filla inta badan wasaaradda shir qabato dad bay isugu yeedhaan waxay tiraahdaa war deegaanka warsan war hoy dalka haddaan dadku wada fiirin oo qof walba aysan la jeclo ka gelin dalku ma dhisnaanayo qof kasta waxaa laga rabaa inuu deegaanka u danqabo wasiirku wuxuu yidhi yaa ururiye baxo haddaaye maalin kasta deegaanada markaan tagno anaga ka ururna booliiska haddaan nahay ciidankaana wadana ku amarnaa degmooyinkaana la shaqeeya diyaar waxaanu nahay deegaanku wuxuu yahay